بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وكتاب كيني الرحبية في علم الفرائض عشر كيسي سدحي تمنات باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال وانبيك عنهن على التوالي. baabkan wuxuu xiriir la leeyahay alxaj ayuu xiriir la leeyahay. waa baabuljad walikhwati waaye. waxaan soo tilmaanay cashir ka horeeyey jad walikhwa in ay salafku isu khilaafsanaayeen, ay ku kala tageen, oo bacdu ahlilcilmin ay leeyihiin awowuhu waa xijaabaya walaalaha, bacdu ahlilcilmin ay leeyihiin waa isla dhexlayaan. waxaan soo tilmaamnay jamhuurtu in ay qabto si imaam maalik, imaam shaafi, axmed bin xambal iyo xataa saaxiiba abi xaniifa maxamed ashaybani iyo abu yuusuf alkuufi in ay qabaan jadka iyo walaalahu inay isla dhexlayaan. laakiin mucdam asaxaaba oo abubakar ugu horeeyo waxay qabaan inuu awowuhu xijaabayo. madaahibtana abu xaniifa ayaa qaba in awowuhu uu xijaabayo walaalaha. xataa bacdu shaaficiya waa qaba, imaam muzani iyo ibnulban iyo waa qabaan. waxaa asna sidaas qaba inuu awowuhu xijaabayo walaalaha sheikh lislaam ibnu taymiya. waxaa si fiican uga hadla ibnu qayim aljuziya kitaabka iclaam almuwaqiciin oo ilaa 20 wej kusoo naqlinaya, isku dayaya wej kasta in uu yani taabsiiyo, yani ku gaarsiiyo qanaaca dhamaystiran in aysan awowuhu yani in awowuhu uu xijaabayo. yani 20 wej wejhi kasta keligiis hadaa si fiican u fiiriso isaga ayaa dil ku filan in awowuhu uu xijaabayo walaalaha. marka qof kastoo daalib cilmi waa jeclaalahay wama usoo jeedihaa iclaam muwaqiciin inay si fiican ay masalahaas uga uga muraajaceeyaan. ilaa 20 wej kusoo naqlihaa adiga mujalad koobaad 281. waaya kitaab akhrina. wanabtadi alaana, hadda waxaan bilaabaynaa bima aradnaa bima alladii kii ayaan maaragtahay bilaabaynaa aradnaa aan doonay fi ljaddi awah dhexdiisa aan ka doonay walakhwat walaalaha id cila wacadnaa waa soo ballan qaadna waa faalqi tuur naxو ma jihata ma. faalqi soo tuur waa asamcu boot, asamca mafcuula maqalka usoo tuur naxو ma jihata ma shay xaggiisoo aquulu aan ku leeyahay. wajmac aruuri xawaashi lkalimaati, kalimaadka darfihiisa jamcan aruuri waa. wuxuu ku leeyahay waxaan ka hadlaynaa baab jad walikhwa. waxyar hordhac haddii si guud aan waxyar u taataabano, yani si guud ahaan kadibna kitaab ka fasiri doonaa. jadka iyo walaaluhu, yani walaalahaasu waxay noqon karaan walaalo wiilay noqon karaan, walaalo gabdhahay noqon karaan, walaalo gabdho isla jira noqon karaan, ashiqa ay noqon karaan, liyaab ay noqon karaan, awaahi walaalkiis keligooda noqon karaan, ahlu farad in la joogay noqon karaan. inahaas baa ku imaa. markaas si fiican ayaan kala saaraynaa. qawaacid ahaan markaan tilmaano waxaa fiican qaacidada markaad ku sugnaad kadib kitaabka aan ugu soconaya. walaalaha awowaha waxaa loo kala qaadaa, yani walaalaha awowahaas dhexitaankood waxaa loo kala qaadaa awowaha waxa la jiraa inay hal sinfi yihiin, inay 2 sinfi kale yihiin. macnaha sinfi waxaa leedahay ama ashiqa keliya waaye ama liab waaye. sinfi macnaha ashiqada keligood hal sinfi waaye, liabkan hal sinfi waaye. dabcan اليوم laga hadli maayo oo horaan kusoo dhaafna. ويفضل يعني ابن الأم بالإسقاط بالجد في وطن صار عفن معناه، ويفضل ابن الأم بالإسقاط في الجد في أحواله وطن صار عفن معناه. marka waxa laga hadlaaho al-ikhwa marka la yiraahdo waxa waaye horta jadka hadii la yiraahdo jadka laga hadlaaho waa jadka saxiixa oo laga hadli maayo jadkii faasidka ahay. ikhwa hadii la yiraahdo waxa laga hadlaa waa ikhwada ashiqada ama liabka. marka awowaha walaalaha jira waxaa loo kala qaadaa 2 qayb in ay sinfi waaxida yihiin
ama ashiqa bisaa la jira ama liabaa la jira iyo inay laba sife yihiin dadka la jiraa oo waxay ka kooban yihiin ashiqa iyo liabka waa ka kooban yihiin macnaa awowa waxa la jiraaho ama waa awoowo oo hal sinfi ah yani hal awoowo iyo ashiqo ama hal awoowo iyo liab waa qayb ama awoowo iyo labada sife wada jira yani awoowo iyo ashiqa ah yani ashiqa liabka iyo awoowo wada jira macnaa sinfaani saasaa laga jeedaa labaasaa loo kala qaadaa marka hore awoowo hal sife la jiro iyo awoowo hal sife la jiro ayib waxaan hormarihaynaa awowaha markuu hal sife la jiro waxaan dib u dhigaynaa awowaha markuu laba sife la jiro laba sinfi waa sheegnay waa ashiqada iyo liabka wada halka qayb ashiqada keligood sinfiyaa la yidhaahdaa liabkana sinfiyaa la yidhaahdaa marka waxaan hormarihaynaa awowaha marka uu la jiro yani hal sinfi oo ama ashiqaa la jirta ama liabaa la jirta ayib awowaha marka hal sinfi la jiro marka labaa loo kala qaadaa waxa la jiraaho in ahlu farad la joogo inuu isla joogin yani awowaha iyo walaalihii oo hal sinfiga ahay inuu ahlu farad la joogo inuu isla joogo loo kala qaadaa saas waa yani ahlu farad markuu la joogo marka ahlu farad uusan la joogin hormari waxaan nidhi awowaha markuu hal sifa la joogo waxaa loo kala qaadaa inuu ahlu farad la joogo inuusan la joogin ahlu farad markuu uusan la joogin awowaha waxaa la yidhaahdaa khayru amrayni wax lagu siiyaa alaxadu lahu laba walxaat midka u dheef badan wax lagu siiyaa waa goobmay awowaha markuu hal sifa la joogo ahlu farad uusan joogin laba walxaat midka u fiican ayaa wax lagu siiya awowaha oo ah muqaasamatu kula almaal iyo thuluthu kula almaal meesha waxa jooga waa awoowe iyo walaalo hal sinfi ah bes ahlu farad lama jiro walaalo laba sinfi ma hal sinfi lewa ama awowey ashiqa lewaay awowey laab lewaay ahlu faradan lama joogo waxaa la leeyahay xoolaha muqaasamo iyo thuluthu kulmaal yaa u fiican labadaas midka u fiicana wax lagu siiyaa khayru amrina wax lagu siiyaa alaxadu lahu wax lagu siiyaa labadaas yani xoolihii marna muqaasama loo qaybihaa waxaa soo baxa intaasaa soo baxe thuluthu maal meeqay naqahay intaas midka fiican midka badan ayaa u halasiya inta kale waa walaalaha la siiyaa macnaha saas wa ayib haddii ahlu farad joogo u umaw awowihii iyo hal sinfi iyo ahlu farad waa waxaa la leeyahay saddex walxaato khayru umuurin halaatha saddex walxaato midka u khayrka badan wax lagu siiyaa alaxadu lahu min umuuri halaatha wax lagu siiyaa oo ah sudus kula almaal thuluth albaaqi bacda dawi alfuruud iyo muqaasama saddexaas yaa badan le hantida guud aha marka lix loo qaybiyo inta soo baxe iyo waxaa la isbarbar dhigaa ahlu farad marka wuxuu la siiyo wixii soo hara inta ay naqahe macnaha thulutkiis yani ahlu farad marka wuxuu la siiyo wixii soo hara saddex loo qayba qayb iyo sudusu kula almaal iyo muqaasama wixii soo hara muqaasama waa loo qaybiyaa macnaha saddexaas yaa badanaa iyo saddexaas la isbarbar dhigaa midku wax ku badan yahay ayaa wax lagu siiyaa ayib marka meeqay naqahe haddii ahlu farad uusan la joogin laba mid u fiican waa ahlu farad markuu loo jeedana saddex uma shan axwaalay naqahe markaas shan qaybood naqahe yani ahlu farad markuu lasla joogin waxaa la yidhaahdaa muqaasamo iyo thuluthulmaal midka u fiican wax lagu siiyaa haddii ahlu farad joogana sudusu kulalmaal iyo thuluthulbaaqi iyo muqaasama yaa wax lagu siiyaa shan walxaatay naqahe marka shantaas dii loo isku celceliyay marka waa afaro ama waa muqaasamo ama waa thuluthulmaal ama waa sudusulmaal ama waa thuluthulbaaqi saas waa macnaha ayib waa kala qaadaynaa marka ahlu farad markuu joogo xagga noo dhig ahlu farad markuusan joogin maxaan idhi laba walxaat yaa u fiican wax lagu siiyaa la yidhaahdaa yaa u fiican owaha yaa u fiican ayaa la yidhaahdaa oo waxaan idhi almuqaasama iyo thuluthu kulalmaal waxay culamada dhaheen culamada sii jilciyeen waxay dhaheen goomay u fiican tahay muqaasamo goomaysa thuluthumaal awaha u fiican tahay marka waxay dhaheen يعني مركي بعد الاستقراء مركي سفي عن متابعين أو سفي عن معناها الله جلعيي أو حاس صوب حضي ولا لها وها للجوجا إلى أهل فرد ما الجوجا موقتها مركي مثلين كيس أي كيريهينو أو وها مقاسمة أو في عن يراهن مركي ولا لها للجوجا أي مثلين كيس كيريهين أو وها مقاسمة أو في عن مثلين ولا بجبار أستقل بجبار كيس مركي ولا له أي كيريهينو أو وها مقاسمة أو في عن هذين مثلين كيس ولا له كبديهين أو وها ثلث مرة أو في عن ساسوا هذين مثلين كيس اللي مديهين استغمضوا كارتا كوسي كرتا وحواي أوهي أهل فرد لما جوجو هل سفيا لجوجا
waxaan niri muqaasama iyo thuluth maal yaa u fiican muqaasama waxay u fiican tahay walaaluhu markay mithleenkiis ay ka yar yihiin idaa kaan ikhwatu aqala min mithlayhi awaha waxaa u fiican almuqaasamatu khayru lahu mithaal labajibaar labajibaarkiisa ka yarin dhadhami aw walaalaha oo halka sinfiga awaha la joogaa alfarda ma joogiye markay asaga labajibaarkiisa yihiin muqaasama u fiican tusaalahaan mida wuxuu ka tegay jad iyo walaalkiis bas hal walaala la joog mithleenkiis ma ka yar yihiin mase waa ka badan yihiin waa ka yar yihiin idan maxaa u fiican muqaasama afar xoolaa laba loo qaybiha haafifay kala qaadayaan dayib qofaad dhinta wuxuu ka tegay awow iyo saddex walaalaha ka tegay awow iyo saddex walaalaha ka tegay mithleenkiis ma ka badan yihiin mase waa ka yar yihiin waa ka badan yihiin maxaa u fiican markaas muqaasama u fiican cafwan thuluthul maala u fiican mithleenkiis markay ka badan yihiin awowaha markaas waxaa u fiican thuluthul maala u fiican sababto haddaba qiimay yani hadla afar walaalaha la joog afar walaalaha la joog haddii thuluthmaal la yidhahdo xoolaha $3 dhigo hela haddii muqaasamo la yidhahdo madaxa loo qaybiha moogtaha madaxa loo qaybiha 5 khumus oo hela yaa fiican thuluthmaal aa fiican idan awow markay mithleenkiis ay ka badan yihiin awowaha thuluthmaal u fiican hadday mithleenkiis ka yar yihiinna waxaa u fiican muqaasama u fiican culamadu waa sii jecel haddii mithleenkiis lamid yihiinna laba jibaarkiis lamid yihiin mathalan waa awow iyo laba walaala mithleenkiis lamid yihiin awow iyo afar gabdha oo walaala waa mithleenkiis lamid yihiin markaas oo kan isugu mid waa ka arrintaa sii kartaa macnaha culamadu waxay dhahaan sii jilciyeen waxay dhaheen meeqa suwar ay muqaasama u fiican tahay meeqa mithaal ay thuluthmaal u fiican yahay gooma isugu mid tahay waxay dhaheen muqaasamada waxay u fiican tahay 5 suuro 5 mithaal 5 suuro awaha waxaa u fiican muqaasama 5 suuradana adigaa keeni karo walaalo inuu laba jibaarkiis ka yaryihiin bisaad fiirihe maxay naqahe awoowo iyo hal walaal mithleenkiis waa ka yaryihiin awoowo jad iyo ukhto waa ka yaryihiin jad iyo ukhtaan mithleenkiisaa lagu yiriyaa markii meeshan la joogo oo gabar meesha ay soo gasho awoohu sida ka akhow naqaha haddii muqaasamo la yiraahdo waa lidakar midcooda laba yani laba gabdhood hal halka awoowo laba gabdhood lamid yahay marka haddii jad iyo ukhtaan la yiraahdo mithleenkiis waa ka yaryihiin waa asalbi kalka waa asal mid mithleen ala rabaa asiga laba jibaarkiis ina ka yaryihiin ala rabaa mithlay laba jibaar waa saas waa marka suurada hore maxaa niri jad iyo akh mithleenkiis waa ka yaryihiin jad iyo ukhto jad iyo ukhtaane jad akh iyo ukhto iyo jad iyo ثلاث أخوات mithleenkiis waa ka yaryihiin sababtoo awow afar gabdhood mithleenkiis naqay moogta 3 gabdhood waa ka yaryihiin marka 5 suuradood awowaha muqaasama u fiican xoolaha madaxa laga qaybiha haddii wiilo soo galaana gabdhaha laba madaxa laga xisaabiha asaga hadduu wiilal kaliya ay wada yihiin hadday gabdha soo galaan dheh wiilasha iyo asaga laba laba laga xisaabiha hadday macnaha wiilal wada noqdaan oo walaalo iyo jad wada noqdaanna madax kooba laga xisaabiha saas waa idan 5 suuradood awaha waxaa u fiican muqaasama sababtoo ah waxay ka yaryihiin mithlayhi ka yaryihiin طيب waa 5 suuro mithleenkiis waxay lamid yihiin la yiri 3 suuro 3 mithaal 3 suuro mithleenkiis lamid yihiin yaawa waa jad iyo laba akho mithleenkiis lamid yihiin jad iyo afar ukhto mithleenkiis lamid yihiin jad iyo akh iyo ukhtaani mithleenkiis lamid yihiin markaas waxaa la yiri muqaasaman waa iyo thuluthmaan isugu mid waa ka rabta oo fatwa kartaa shaafici soo khilaafaan waxay yiraahdaan ya muqaddama waxa muqaddama hay yiraahaan thuluthmaalka muqaddama sababtoo ah xoolahi saddex ka dhismaaya بعض أهل العلم إنه حليهين مقاسمة لكن اسمه مذوى صح كهرب تلقى ذكرتها معنا طيب مثلين كيس مرة كبدين صورة ما لها ليل أمثلة لو كوي بكرة يعني أخي وأنا بجبر كيس كبدين وجد معن كورة هذا هي يصدح أخ أفر أخ شان أخ لا أنت هربت جارسي صورة المحصور ما وأنا بجبر كيس وأنا كبدين أون مركب ميغم مثال صباح هذي سديت صورة وحن أهين تقع وحاء فيعن وحاء فيعن ثلث مال أو فيعن ساسوا سيدي أساس صوروحي كصهرا 5 صور مقاسمة أو فيعن 5 صور نسوق مدوى ناشط حاجة بحني أوهي مركي أهل فرد وصل الجوجين هل سنفنا للجوج طيب وحاء فيعن نري مقاسمة ثلث مال كوربه طيب هذا حنقلنا أوه وأهل فرد للجوج إيوه هل سنفي إخوضه أما الشقة واي أما اللي أبوى يعني مركي لباس مسؤولية دو أوريك أنا موقته وحن كلنا كهالينا أووها أو هل سيف اللي جوجو أهله فضل اللي جوجان مركز سبحان الله أوه حل وصية سدوس كل المال ثلث الباقي المقاسمة يوفيع الحظ له
خير يعني خير من هذه الأمور. أنت سدح ذاك وخير كبدن أيا لسيا سدس كل المال إيو إن هنتي جود سدس لك فيريو مقاسمة إيو ثلث الباقي. مثلا تصالحان بالمثال يوضح المقالة لير قفاد أنت حكتك زوج يجد يا أخ جدك أول شيء أهل الفرد وحود لسيا هرت أهل الفرد مركي بحان كذب قالوا وحال أسفر دقا سدس كل المال مقاسمة ثلث الباقي على أسفر دقا. طيب زوج يجد يا أخ أنا المثال هان أهل الفرد هل أهل الفرد هل كان عصباء أسلنا غايان صوتك الأخوة موقتها زوج أهل النساء نسكي سيهان تدل نسكو نس حولها دين لو سول زوج كوحي سلسيو عبدا صهرته إن مقاسمة ليرة إن سدسه كل ما ليرة إيه ثلث باقي ليرة يافي عن اللي وعاد هذه الشيء وير سدس كبيح كان مسكحان حولها اللي حكرس مثلا صدح كبيح معها صهر صدح هذا سدسه كل ما هدي ليرة وهل ثلث الباقي هدي ليرة وهل يعني مقاسمة هدي ليرة أنا ما يقوه له كلا برو هلا ساسوا يافي عن مرك مقاسمة أو في عن مقاسمة أو في عن صوته كلا برو هلا وقت هالي برو هلا خلاص وحلو باش مركة مقاسمة لو قد فيها. طيب حوالي مركة لبا لقدسة مقاسمة دي اللي راهضو وحوا قيب عادي لبقى فوق سلمي ذوا كسر عادي اسكال عادي حوالي مركة لبدوها لو قدسة زوج حبيسة سيه حبدا صهرة حبدا كلك مقاسمة قاعدة وقتها هل سفيه كجبنتها لبو يهل تباينا كدحية لبدا waxaan ku dhifayna asmasaro afar mas'ala dhisme zawjki niskiisa la siyaa maxaa soo haray hal yaha loo kala qaado idan xaaladaas marka waxa u fiican muqaasama saasad ku waday yani marka hal fard wixii la siiyo wixii soo hara aad waxaad soo fiirihe sudus kulal maal iyo thuluth al baaqi iyo muqaasama macnaha muqaasama iyo thuluth al maal afwan muqaasama macnaha wixii soo hara waa looga jeedaa wax la qaybsaa iyo سدس ثلث الباقي يسدس كل المال متكون في عهد القصية. طيب ولما مركي سفي عن وجه العيان وحال يري تضبح على صباحه مر أي مقاسمة واجبته أو وحكة الاسم بنانين مر ثلث الباقي أو قصبيه معنا مر بالأسفار بدقو أي تاسو قسم نغيه مر محنكور هذا هي سدس كل المال أو قصبيه مر أي اسكمتها هي مقاسمة إيه ثلث الباقي مر اسكمتها مقاسمة سدس المالك مر اسكمتها هي سدس كل ما إيه ثلث الباقي إيه مر أي سدح بسمية كارت كل حال سكرت تضبط الصورة تضبط الصورة واحد وجي سامرك معنا الفرد ممكن تضبط الصورة كإماه تضبط الصورة كإماه يعني مري إلا مع المكتب حلقة فيريها ليري سدس كل المال إيه ثلث الباقي مقاسمة أمثلة المركة لحق على مركة تضبط يمد ونغه إنه مقاسمة في عناته إنه ثلث باقي في عناده إنه سدس ملك ما في عناده إنه مقاسمة ثلث باقي سلمين نغلان إيه إنه مقاسمة سدس باقي سلمين نغلان إيه إنه سلمين نغلان سدس المال ثلث باقي إيه سدح سلمين نغلان تضبط الصورة تضبط الصورة حد يجي سدح الصورة أهل فضل سنجوجين إلا بحيث موقتها مر مقاسمة وفي عناد مر ثلث مال وفي عناد مر سومتها تضبط سدح وجاي طبعا كاس حالة كما بحمرك طبعا كاس حالة باب الجد والإخوة كما بحان ومركي هالسن في الجوجان إلى هذا لازم ما ننقل المثال مثال سوق بسينا مثلا قفا انت حكتك يعني هويديس ايوه جت ثلاث اخوه وكتك ثلاث اخوه اخي جت حقوقا باهل فرد وحدثي هويدا ولا تعددا جوغي سدسغي xoolaa li xalaga dhis xabadaasi shana soo hart shantaas waxa la yiraahdo fardo joog maxaan nir waxaan isku ogeynay yaa u fiican sudus kulal maal ثلث الباقي هي مقاسمة سو ما هين الفرد جو وقتها سدس هويديسي ما صهر شنتي waxaan fiiriyayna sudus kulma hadii la rabo meeqo waa hal xaga dhig hadith hadii la yiraahdo muqaasama hadii la yiraahdo muqaasada madaxa laga fiiriha waa laba walaala iyo jad ma ogtahay saddex madaxay naqahe saddex oo shan loo qaybiyay kiiba wuxuu helaa hal iyo thuluth. طيب hadii la yiraahdo thuluth al-baaqi hadii la yiraahdo shanta baaqi ma ogtahay ayaduna sidoo kale waa hal iyo thuluth idan mas'aladan waxa isku mid ah muqaasam thuluth baaqi isku mid ah saaswa xooli marka qaacida imaaha oo tagi doona taasiilka
كل مسألة فيها سدس وثلث الباقي فالمسألة من 18 مرة وتقدر التأصيلات مركان تقنو يعني ميلها وحيابها معناها أصولشا معناها أو حق قواعد وحكم من غض وانت مسألة كستو سدس ثلث باقي سوي ماذا ليه احتمال الجاية بعض أهل العلم وحي لين تأصيل أصل ما هنا وتقدر خلاف وحي كتب التصحيح حديت قاعدة أصل قاعدة أصل أي لقد جائز حديت تصحيح لقد أنا مثلا ما دام له حكميه ثلث الباقي صدح اللي لو غرفها 8 تيغوان اسكو ماشي له المهم markay 18 noqoto hooyo suduskeeda si waa 3 15 soo hartay muqaasama daatira min 5 kala helayaan ثلث الباقي daatira 5 helay la baaqo 15 mogta 5 ka sii 10 kaas wala dhaxay maahay طبعا kasrin laba yahayn 10 min 5 u kala qaadayaan طيب saas waa halo majara saas ku socodsiye marka idan si kooban alfar hadoosan joogin مقاسمة ثلث مال كي أفعل الوصية أرفض دوس هدو جوجنا سدس كل المال يثلث باقي مقاسمة إصبر فريقة كي أفعل الوصية طبعا كاسورة نكو معه أنت اسمرك حاجة بحني هل مركي وجدك كل جوه حال سنفي وحنجلينا جدك مركو ولا بعض السنفي أي أنت أنا جود جلين كار عفوا أنت أنا جود جلين جدك حدي حبس هيرن كور هذا التحالة هرم كلها بنايا هل سنف في الولي جوجنا حدي اسم وحسوهن إلا بحان الموقت جت أهل فرد جوجا أهل فرد مركز روحي سلاسية صوما روحي صهرة وحلقة فيها سدس وكل المال هي مقاسم يثلث باقي صوما هذا وحسوهن هذا سد حاله ولا له ودعان هذا حبت سهرن ولا له ودعان أوها أهل فرد سدس سلاسية حدي هل سدس صهرنا أوها قاعدة ولا له ودعان سدس وحكير هذي صهران أوها سدس لما يستلا ولا عولا ولا له ودعان سد حس حاله ولا له ودعان وما يدعان مركن وحسوهر ولا له ودعان أوها ولا عولا أوها كما يعني وليس عنه نازلا بحال وتقدرنا لح سدس كير يعني مقاته وإنه سدس هلا ويران مركي أرنتان يسريحنا معها سدس وح كبدا مركي يمادان وشكدان موكه لكن هل سدسها صهر ولا له ودعان أوها قادها سدس وح كيرا صهر سدس أوها الله دمستر مسوى اللعولة حبت صومهر أوها سدس لو فرد يلا واللعولة ولا نسيح حاله ودعا ينوى ماشي مركو حاجة بحني أوه أو هل سنفي للجوجو أما أهل فرد هالجوجو من الجوجين حق لك وحاجود بين هذا أوه وحال الجوجو لا بس سنفي لا بس سنفي دول الجوجو أوه هدي لا فيريو أوه هدي لا فيريو طبعا كي حال سيدي دوا بحسب الدليل معين طبعا كي حالون كسو dhaafnay marka hal sinfi ay joogayaan sida leewa had cilm mas'ala dheeraadka wala la xagooda imaha ilaa laba sinfi ah kal reeb u baahan ama awha xagiisu waa un 10 kii xaalo hadan soo dhaafnay bas oo hada macnaha waxa ilaahdo saas waa 10 kii xaalo soo dhaafnay oo hada ahlu fard joogina waa un labada mid u rooneed muqaasama thuluth maal hadii sudus hadii ahlu fard joogana sudus kul maal iyo thuluth baaqi muqaas awhu xawaashi sidiis wax soo bedel مسألة أنت وحاول دهرات كو أمرك وهذا الخاص لو قد يجيو ولا له ولا لهان لبسن فيها جوج لبسن فيها وأشقها يلعب اسكو أود ما ماشي الجدل اللي قال لي طيب ولا لهان الشقة وحن صومر حجبك حجب مركن جو حن صومرني الشقة أسوي جوج لا بحمي يالان صومهين ما أنت مركا الشقة دي هدي ولا له أباهين لحالك ولا كسو درة marka lagu soo daro oo la isla riixo kadib walaal iska tagayaan goomay u baahan yihiin goomay u baahneen waxa la yiri ashqadu haday mithlay aljadd ka yaryihiin laabka u baahan yihiin haday laakiin awoowaha la bijbaarkiis walaal ashqada ka badnaadaan u baahan laabka xisaabta lagu soo darma xaq iga tagaalay mas'alatu almu'aadda leeyahay mas'alada yani madhabka ka horjeeda madhabka qaba yani ikhwadu inay dhacayaan مسائش يكون قبصدان إلا سلاح لسي مسائش أنا كمذا يعني واللي حسابيها أصلا اللي رعضيها المهم يعني ولا لها الشقضة هذي مثلي الجد أي كيريهينو الشقضة وأباهي وانا حساب سايان أما مثلي الجد هذي كبديهين ولا لها الأبكى أمباهنا وعيريها يعني طيب مثلي مركي كيريهين مثلي جمرة كيريهين حسابتي ku darahayaan marka xisabta awooh la isla ceeriyo wada ahlu farad joogna yani ama thuluthki ama macnaha la isla riixo kadiba
لأبكو دعايا أنت سهرتنا أشقاق هذا مثلا قفر أنت حكت جد أخ شقيقة إيه لبا أخال لأب هذا هل أخ شقيقة جوج مثلي جتهل جد مرمو وأبهيه لأبكو حساب صح كاري ولي ولا لها إن كان ولا كان واي الحال كان أصل لنا هاي محنكور هذا هاي أصل حلو ليه حواليه مركة لأبكو على حسابها موقتها تيهر الله بمركة أهل فرض كل كان متجوه مركة ما دام الأب لحسابها هاي وحال اللي هاي ثلث يعني ثلث كل المال هي مقاسمة يا أوفيعة مثلي هي كبتة كل كان صوتهم محان نري مقاسمة حوف يعني مركة مثلي جد كيري يمسوا ما حتى ولا له اللي أبكو على حسابها موقتها مثلي ما كبديه أو مركب حوس قلا ثلث المال حول ثلث فوق هذا حول ثلث على قديقة هل كيسا لسيها لابد مركي سهرتي أخ شقيقة اللي أبكو حول لي حمل سراش مرك رال هذا أساق هذا هاي لابد اللي أبكو نساسو كو عيريها حد ولا على حساب صالحين أو مقاسمة آدي لهاي ثلث ما آذين مقاسمة مركي اللي نس أو مركز نس وقاعدة لهاي اللي أبكو كانوا حساب سيي نسكي وكو عيريي ثلث وجاي أي جايين ثلث مركو تيكذب أو لابد سهرتي مركاسو اللي أبكو قاعدة مرك شقيق قاعدة ليش لابد شقيق قاعدة ساسو اللي أبكو مركو دعاء اللي أبكو دعايا مثلي صوت وبعدين وحساب سنين جدك كو عريريان كدي من أيك السياقات وهكذا أدوك مركا أمثلة وحافي عن قفك إنه أنت أمثلة في ربنا سوق الصورة دايستو قواعد أنت فهمه أو مركز كشغاية طيب وحال يري مركا لأبكم مرئي وحيلا يمجرتها أصلك كوان لأبكا مرئي وحيلي كران مجرتها هذا والله بقرنها بل مثلي الجد مركا يراها وبحساب صدين أشغالي markay xisaabsadeen ay awood ku cariiriyeen wixii soo ay ka qaateen laakiin ma dhici kartaa leeyahay xaalad ama bacd al-ahwaal oo la abkan u xiri karaan waa jirtaa leeyahay waa go'ma waa hal xaalo awowaha walaalaha oo ashqadaahu oo la joogaahu markay hal ukhta shaqiiqata leewa ama haday ukhta shaqiiqa ka mandaadaan oo ama laba ukhta shaqiiqa ama akh shaqiiqa ama laba akh shaqiiq wax si kale in qaato macnaha la xibad helimayaan hal suurad bis oo xiri karaan waa go'may ولا لها الشقة مرك هل أخت أي تهوى هل أخت ديتها هل أخت أنت كان بسكرت يعني السمال مركو حل لي هاي نسك هاجي قاضو أنت كلنا مثلا وحد أنتي جد يا أخت شقيقة يا إخوة الأبوة لو أخوة الأب مثلا جد كمركة أختنا شغالة أبكي حساب سهل مقاسمة لقدقة ماذا حل حسابها موقتها markay xisaabsadaan oo jadka la sal riixo kadib ay waqtan shaqo waxa la yeeshaa marka hal fardaheed nismaal ka bas karin hada niska sa qaadahe inta kale abka qaadaha saas ay macna طيب intaas marka waa qawaacid guud yani marka uu la abka xusoo halaan waa on halka waqti markay joogto waxa mashhuur ka ah leer masaa'il mu'adda leeyahay yani kuwan oo la abka masaa'il mu'adda leeyahay marka masaa'il mu'adda xusoo helayaan وحاجرت على هذا دور أفر مسألة مشهورة أو لو بحشي أو زيد مثلا لفتر كيس أو صق أو قيبية أصله مقعدر زيديات الزيديات اللي ده مركا زيديات كاس من زيدية 10 اللي هذا أنا 10 واحد لو بحش شان وكان سحش مرة من 20 اللي ده من 90 من مختصر زيد اللي هذا طيب مركا كتاب كان آخرين مركا أنت تاس وقواعد جود كده كتاب كان آخرين مركا طيب وحول ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا طيب مركا باب ميراث الجد والإخوة جد وإخوة صار شاقني إخوة دي لسكاد لاغو وأشقاء إلى أبكي كل إخوة ما كبحها يا ماسا جدك صحيح هواي ساسوا باب ميراث الجد مركا حلقة هلا أحكامت مركي إسي مادان حلقة هلا أما جدك دو كل جيسيه ماشي شاركم عليه إخوة دي كل وادي هنا ماشي حلقة هلا وحواي جد إخوة مركي إسي مادان حلقة هلا ماشي ساسوا ونبتدي وبلا بينا الآن هدنا بما بالذي كيان بلا بينا أردنا أن ضوني إراده سؤالورنتي في الجد جدك لحيث أن كضوني والأخو تعالى إذ علاه لأننا وعدنا ويبوهن إذ العلوة أنا هرأوا يبوهني وأتنري وحكمهم سياتي مكمل البيان فتن الموقت هرام بلغات كوسي أنا كاشا كده مرك هذا أنا كبلغ هذا هذا أنك هذينا هو ليه فألقي سطور رد السمع مقلك رد نحو ما جهة ما شيء حقي سو أقوله أن كل هذا معناه عيدكوا وحنا حتى كل هاي سفع ودقيس واجمع عروري حواشي الكلمات أطراف تيدا لنعيده هذا نعيديسه أروري أصلك وحال هذا
bilaaga hore in wax ku dhaafo laga yaaba laakiin dhexda sida badan ku dheefa markaad daashay qaybta aakhir inay ku dhaafto laga yaaba markaas wuxuu ku leeyahay qaybta ugu horeysa ku dambeysay atraafta dhanba aruuriyo si fiican u aruuriyo ku leeyahay wajmac aruuri hawaashi lkalimaati kalimaadka atraafteeda hay hadalka dhamaystirna waa macnaha jamcan aruuri saas waa macnaha waclam dhegeys ogow biana aljadda jadki oo maca alikhwata looga jeedayaa waclam ogow biana aljadda jadki duu axwaalin xaalad mid saaxiiba waay xaalada ku aan soo sheegaynay oo xaalada ku aan soo sheegaynay marna yani ashiqaa la joogta marna liabaa la jooga mar maxaan ku irahdahay muqaasamo wax ku qaadaha mar sudusu maal wax ku qaadaha mar thuluthu maal wax ku qaadaha mar thuluthu baaqi wax ku qaadaha axwaasha lagu sheegaya saas waa waclam ogow biana aljadadku duu axwaalin xaalada mid saaxiiba macnaha ictibaaraat haddii xagga laga fiir haddii xag laga fiirsho marka kuwaan soo sheegan mar oo hal sinfi ay yihiin marka laba sinfi ay la joogaan mar macnaha muqaasamo ay u fiican tahay mar thuluthu maal u fiican yahay mar thuluthu baaqi u fiican yahay wahaakada saas axwaashaas ka loo hayaa saas waa duu axwaalin xaalada mid saaxiiba waa umbiuka ahayd marka waa la takhfiifiyey umbika waa kaaga waramaa canhun axwaashaas cala tawaali maca tawaali ay maca tataabuc waa isku xirxir ahaan yani isdaba joog ahaan aan kaaga hadlaa waa waclam ogow biana aljadda jadki duu axwaal biana aljadda maca alikhwata looga jeeda ibaa jad keligiis dou yahay meesha kuma le jad hadduu yahay waxa waaye jad hadduu keligiisan walaalaysan joogin oo isla joogin hadduu ama waa casabo ama haddii ilma joogaan waa ahlu farad meeshaan looga hadli maayo meesha waxaa looga hadlaa jad iyo maca alikhwata looga wadaa macnaha waclam ogow biana aljadki maca alikhwata la socota duu axwaalin xaalad saaxiiba waa umbika waa kaaga warama canhun axwaashaas cala tawaali maca tataabici wa yuqaasimu kalka wuxuu soo hormariyey kalkan marka ahlu farad la joogin ila waataan niri wuxuu soo hormariyey hal sinfi oo haddaan ahlu farad la joogin soo hormariyey wuxuu ku xijiyaa hal sinfi oo ahlu farad la joogo wuxuu dib u dhigay hal labada sinfi ama ahlu farad hal joog ama soo la joogin dib u dhigay macnaha waclam yuqaasim waa la qaybsadaa jadka alikhwat walaalaha fiihin axwaashaas يعني أصلك أول شيء لقى فيه شيخ وحال لقى فهمها أول شيء فيه هذا أهل الفرد كان مجوج أو قبت أهل الفرد أو سنجوج نسهر مري هل سفين أيهين مرك أوهر شيء أوهر كفي هرت مقاسمة صباح كسوء هذا أيات ثلث مال أفيرها إن يكبر إن يدبوق ما هسونو جماعه هذه مقاسمة مركز خيار ثلث مال هذا إذا مقدم مركز مقاسمة أساسه قوة يقاسم ولا قيب صدا أوه الإخوة ولا لها فيهن أحواش ولا قيب سها إذا قارتي لم يعد سنعلن عادي عدوة ولم تلك يعني معناها تغاسى كان واقوي على طول لم يعد أي لم يعد القسم قسمه ده قيبت سنعليهن عليه جدك بالأداء بيسو كيني يعني مقاسمة ذو مركزا أي سنبو كيني هدي ثلث ما الله فيريو مركزا مقاسمة لسيها الأهل فرد مجو لاس لا لغا فيريها مقاسمة ثلث ما لا سوما لغا فيريها مركب مقاسمة لسيها هدي مقاسمة داسو هدي ثلث ما لو فيريها يدب أقول ماهنين ساسوا يقاسم ولا قيب سدا الإخوة ولا لها فيهن أحواش إذا لم قرت ولا قيب سها هو لم يعد القسم غيبت يسعلن عليك الكيس بالأذى لبيسو كين معنا فتارة في تارة يأخذ جدك حقادها ثلثا كاملا ثلث مسترا ثلث قادها ثلث كاسو كامل مستر وقام إن كان هضوء هذا أوهي على قوضة يا نازلا مدقة عنه ثلث بالقسمة بس القسمة أوجدقة وحول ثلث مال قاضها مركي قسمة هذه اللي في الثلث راح خير وهلا مركز ثلث لسيها وإلا هذيك لنا مقاسمة حقوق هذا هو إذا مركوا ولا بدي حاله ولا أرسل جوجا مركز مقاسمة وحلقوا سيا وتانيري وقامي أقل من مثله هذه ولا له نقدان إذا كان الإخوة أقل مثلي أو ولا لها وحلقوا سيا مقاسمة هذه مثله كسكبتانا ثلث مال لقوا سيا هذه لسنا ما مثله كس نقدانا واتن soo sheegno ka rabtad qaada karta saas waa illam waqo markaas asaas waxa la yeelaa waa illam yakun hadus ahan hunaaka meeshaas dusihamin ay asxaab furudun dad saam saaxiib dad ahlu farad aysan joogin oo awoowi ikhwata bis ay masalada noqoto oo ahlu farad aysan joogin jad iyo ikhwa biswa oo waliba xataa ikhwada hal san fiihiin saas waa illam yakun hadus ahan hunaaka meeshaas dusihamin mitsam saaxiiba فقنع قنع بإيضاحي عدين تيدا عن استفهام سؤال حقك كقنعوة عن استفهام عن استفهامي أنا أدوي استفهامين وأنا غير طبعا معنا قبل درت لو جويو عن استفهامي سؤال يعني أنا وحني وحوي ديسا كقنع
أكون ميسري فقنع قنع بإيضاحي عبدين تيدا وحد ورك أساس هو عدي وحد قنع هذا عن استفهامي إن أورها ويديس بردم ساسو معناها عن استفهام سؤال أنا بخليه كرت عن استفهامي سؤال أنا قنع بداس أوف حبها ورسان هو فيلم وهذا ما تمر ماشي مركم الله أصحاب مركم حقوق صوب حي أهل فرض منك جوجين ولا عليهن هل سنفيهن أو هل سنفي أما معنا هل سنفي اللي أما الشقة اللي أما اللي قبل اللي ساسا لو كذا وهذا مات مركا عرف الجوج عرف الجوج أو أنت قلها وثاني أهل فرض منك الجوج صدح مدو في عروسية سدس كل المال يعني أول شرط أهل فرق وحده لسيها أهل فرق وحده قاتان مركا ساو حساب حل اللي سدس كل المال ميقوك هلا انتاس ثلث الباقي ميقوك هلا انتاس مقاسم ميقوك انتاس معنا صدح حسب حتى بربر ديغو ايا كيف يعني wax lagu siiya todoba suurada ka imaan baatay niri mar ay muqaasamad qasab tahay wax kale SMS soo gali kareen thuluthul maal sudus kul maal mar ay qasab tahay thuluthul baaqi mar isugu mid yihiin adii todoba suura la keenay soo sheegay ka soo haduu ku gala wataratan marna xaalad wataratan fi taratin yaakhudhu jadku xuqata thuluthul baaqi qaadaha wa goomay ba'da dhawil furudi faradyal ku saaxibka kadib أهل فرد مركو يحيو قاتان كدب فرضنا واتن صومرنا وأن نصير مقدمة شرعا وحقان ضدك أهل فردك أو وحقان لهاي ويحيو مركي قاتان كدب وا الثلث الباقي لو في باقي وحكاهرت أهل فردك لو جدا بعد ذوي الفروض كو فرد أصاحبك كدب يوال أرزاقي رزقك أصاحبك والأرزاق رزق وحال لها لما ينتفع به ما ينتفع به ألا وحكا صوح لقد يفو ساسو مركا رزق وحوق جدا إرث جدا ورزق مخصوص قارن oo sadarta marka waa ato tafsiir yiraahan qaarna wixii leemaya ato tafsiir maahane arzaaq wuxuu u jeedaa wasiyadi iyo deynka markay baxaan kadib ahlu faradna baxa kadib saddexan loo fiiraa saasay leeyihiin labadaba shaarix waa soo naqliha saas waa marka wuxuu ku leeyahay wa taaratan mar yaakhudhu jadku wuxuu qaadaha thuluthul baaqi qaadaha bacda dhawil furuudi faradku u saaxiibka kadib iyo wal arzaaqi rizqku u saaxiibka waa والأرزاق أصدارت عدو تفسير كذلك أو فروض التفسير أو معناها هو رزق مخصوص هو حلقة وجدان هذه كرتا هذيك لو حد كرتا وصية إلا مقطوع عن صواب برنامج كان الحلقة سوي بلا بيني أول شيء يعني وحلا هرمرية حقوق متعلقة حلقة وحكارة أو أما وصية يدين كي مارتا هي تجهيز كي وحسوق جدا وهذيك على كسر هذا إشارة وحكوا على ثلث باقي هذا إشارة ثلث باقي وحقوق هذا إذا قرتي إذا ما ديسي مدان معناها مدار التورا إذا قرتي كانت المقاسمة مقاسمة أي أهاتو تنقصه متك نسقامه تنقصه جدك عليه هذا ثلث باقي جدك حال سيها إذا قرتي يو كانت المقاسمة مقاسمة أي أهاتو تنقصه جدك متك نسقامه عن ذاك ثلث باقي قاس ساسوا مقاسمة حال ساسوا بالمزاحمة عريري مركي عريري كوكيني هذا ثلث باقي وحال السيا معنى وحوج أول شيء مقاسمة لسيها مقاسمة مركا ثلث باقي مركو حال السيا مركي مقاسمة عرقي مات أو ثلث باقي وحكير أو هلاي ساسو يجعنا هذا ثلث باقي مركا السيا هو قومي وحكورس أول شيء مقاسمة إذا كانت المقاسمة وحي أهاتي إذا قرتي كانت المقاسمة صحيح أهاتو تنقصه ثلث باقي متكن نسقامه عن ذاك أرنت بالمزاحم عريري ساسو وتارة مرنا يأخذ حقوق هذا سدس المال مالك سدس كسوق هذا مرك أول شيء مقاسمة أفيرها ثلث باقي أفيرها مقاسمة سدس كل مال أفيرها يا أحظ له هذا يا أحسن خير له كاس على سيها وليس جدك معهن نازلا متكدقة عنه سدس المالك بحال مرنا كما ديكرو او اما سدس ما يستر حقيقه قادها حدي wax ka dhinaadaan inta la coolo ayu ismana sudus maal u qaadaha macna meesha marka la joogo hadaan wax soo hirnay markaas soo harta hadaan wax soo harin saddex xaale jidku dhacaan sudus kaliya dooso ay ikhwadu dhacaan saddex xaal ay ikhwadu dhacaan waa goomay waa marka sudus bis oo soo haro xaaladana walays anhu naazina bi xaalin kuwa kala ku tagayaan hadii sudus wax ka yar ay soo haraana walaalu huwa dhacayaan hadaan hal xaba soo harina walaalu dhacayaan awahna waa loo cuula labaas xaalo marka todobadaas xaalo iyo tobankaas xaal markay maaha waa goomay thuluth sudus maal wax ka badan markay soo haraan saas waa dhamaatay marka meeshaas marka waxa looga baxay awoowihi oo hal sinfi ay la joogaan ama ahlu farad hala joogo ay musala joogin hal sinfi ay marka uu hala joogo
ayaan soo dhaafnay marna ahlu farad lama joogo laba xaal mid ku fiicanaa niri mar ahlu farad la jooga saddex xaal mid u fiican niri saas waa وسي وذا وليت حارد سدحد وباب بدك حكت وهو جدكي مع الإناث قبل الجركات حاله إناث وأخوات وجدايا عند القسم قيبت أكتيدا مثل أخمرك مقاسمة ليرات أو باش كان حال مقاسمة كلي هاي أو حالك أو صقل قبل أي صقلان أو سيدا أخا لبا لقى حسابها مع أساس لو جد وجدا وهو جدكي مع الإناث قبل الجركات حاله ياهي عند القسم قيبت أكتيدا مثل أخ ولا الأقروة في سهمه نصيب كسو كل مديا إيه والحكم حكم حوال لذا كان بتحضرنا سيد وأنا غيرته هذيك له عصبة مع الغير وأنا غيرته في الحكم يقول معنا ساسوا وهو جدك مع الإناث قبل الجركة حاله ياهي عند القسم غيبت أكتيدا مثل أخ ولا الأكلواي وهو جدك مثل خبر ورقة مثل أخ ولا الأكلواي في سهمه في نصيبه أو كل مديا iyo xukm xukunkiiwa lidda kan mid xadul macna kaligood jad ikhtiday si yimaadaan lidda kan muqaasamada kale lidda kan mid xadul u kala qaansaas uga jooga marka xukun uu ku siiyo xukunka lusiyaha wuxuu yiri awoowahan marka gabdhaha yimaadaan waa walaalo lamidiyah waxa soo baxay walaaluhu markii shalay hooyo la joogeen oo hadaysan joogin hooyo thuluthay lahayd hadii walaaluhu tacadudaan sudusay aaday maanta waxa la yiri awoowuhu walaalkii lamidiyah hadii hal akh iyo jad isu yimaadaano hooyada inta ciriiriyo sidis ma aadi karaan asoo bixi ma ogtahay waqtaasi ku diid wuxuu ku yiri ilaa macluumi hooyada jirkeeda maahan oo midalan iyo jad iyo akha isu yimid hooyada la dhihi maayo akhan waa mithal akhina wala waxa tagtaa sudus la dhihi maayo ku soo jeega ilaa macluumi hooyada jirkeeda maahan markaas awuhu wala la mid maaha oo laba walaal haday yimaadaan hooyadiisu taglayso maanta la dhihi maayo awoowo walaalaha tahay hooyay walaalaha ku tacaduday sudus tag la dhihi ma saas uga jeeda ilaa macluumi hooyada jirkeeda maahan oo fala yaxjubu jatu kam xijaabi kari ha hooyada kam xijaabi kari inta thuluth ka racday sudus ma geey kari bal iska badaafe thuluthul maali ayaa laha usugnaad hooyada yasxabu xaal oo jadku la jooga ha yasxabu yani xaal oo jadku la jooga ha ayada ay koob isla jooga ay hooyada sudus dhameystiran qaaday xaba kama tiri karo oo hadii inta qof dhinto hooyo iyo jad iyo akh isu yimaadaan hooyo thuluthkeeda dhameystiran qaaday wixii soo hera waxa la leeyahay muqaasamo iyo thuluth iyo sudus kulmaal iyo muqaasamo yaa u fiican labahaas laga baxaa waa dhamaat meeshaas marka waxa laga baxay jad iyo ikhwa oo hal sinf la joog laba sinf haday joogaan waa tanaa وشيغناي لبا صفه دي isugu yimaadaan waxaan niri awaha axwaashid xabba iska bedel maayaan waxa axwaashid isbedelay hooyaa waaye waa ikhwadaan oo labada sifo ka kooban isbedelay saas waa marka waxa la leeyahay haday u baahan yihiin walaalaha haday u baahan yihiin maxaan ku raahdahay walaalaha ashqada markii la haday u baahdaan markaas xisaabsan goomay u baahdaan niri markay walaaluhu ashqada ay maartay ka yar yihiin awaha laba jibaarkiis in kaanad yani kaanu أقل من مثلي الجد مركز حساب سايا وكان وحو كير مركز دي لكن أي مثلين كيس ولا أشغله كبرنا لأبك ومبهنا كالكاس عيريها لأبك مركز عيريان أي كال الحساب تمام وحو كير واحسب حسابي أيها الفرضي قف كاقد حديقان كهو بني الأبي أي أولاد الأبي إخوة الأبوة ساس أوجد جدا كل أبك حساب تقدر مع الأعداد اللي ترى قدر سو أو مركز حسابي هاي oo jadka iyo ikhwada ashqada ee la joogan la abkan xisaabta ku daro kulliya waana waxa way markii ay u baahdaan leewaaya saas xaga awowuhu axwaasha sida hore waxa meeshan kaliya oo dheeraad ku ah walaalaha dhaxdooda laga hadlooyaa bis yani markii laba sinf ee la joogan xogaa masaxiib ka weynaan laba sinf markii la joogaano awu axwaash xab iska bedelamayaan waxa axwaash isbedelayo waa li abka iyo ashqada ساسوا واحسب حساب سو كلية بني الأبي أي أولاد الأبي أبه المهودة مع العداد ترى لجركوده حساب سو وارفض ديد أو حسابين بني الأم إخوة الأم حساب سنة تاس مع الأجداد سوته وهريدا مثلا هرو صمرنا معنا وماشي مركب مسألة وطن شاقني ومسألة النقط ضعف اللي هو هيستو توريث الجدوى الإخوة ماشي مهم سن أو اللي هو هيستوى ومرنا يعني التناقض أو كجرى الليه مرنا محنكور هذا هي ولا عليه
مر أسرع مر كي وحنص ضعفنا مر أهل السدس الله فتوض مر ثلث الباقي الليل مر ثلث المال الليل مر أهل فرعة الليلية مر عصبات الليلية أنت أنا محل ولا له مر حسابته صوغلا لحب الله ينسمها بحا حوجة تناقض يلا كجري أكدري مثلا تقدر أنت تساوي صدر وأنت قبل أهل فرع بقدره أو الفرد laga dhigo oo haddana muqaasama isugu taga leeyahay waxa soo dhan tanaaqada ku jira marka nuqaadka lagu haystay kamid tahay macnaha saas waa معناها باعتبار واهل فرض باعتبار عصبوا باعتبار ولا لها ولا لي الابكى واهل فرض معناها يعني اهل حلك وحي كليه باعتبار حلكم waxa soo tanaaqud degan macnaha saas waa marka qaybtan oo walaalaha la xisaabsan maxaa leeyahay masaa'il mu'aada leeyahay wa masaa'isha oo macnaha min cadda waa tirs wala tirsaha wala xisaabsan macnaha marka hadhow xoolihii awoohan lagu ciriiriyo oo ay macnaha taxs ay ku ciriiriyaan kadib iska baxleeyeen saas waa marka li abkana hal waatan sheegnay hal masal hal xaala bis ay soo heri karaan markay shaqadu ay hal ukhta shaqeeyna qato nisma ka badan ma qaadan karto wixii soo haray la siyaa macnaha saas waa wuxuu ku yiri wax soo xisaabso bani al-abi abaha wiilasheeda macala daad war fudid man al-ummi macala ajdad oo hel jirkooda waa وعيرها واحكم حكمه هذانا على الإخوة ولا لها بعد العد ترش كذب حكمك أي حكم يو حكمك حكمك هذا كلاه فيه لحظة عند فقد الجد أو وهدي لواي أو وهدو سنجوجين سال يرجع الشقة سنجوج لأبو حمد يالين صوما مركز حساسته أو وهلو عريري أو حسقاته كذب أصل كأقول له أبو الشقة لأبك عريان ولا حمس ساسوا معنا واحكم حكمه على الإخوة ولا لها بعد عاد ترسس كذب حكمك حكمك مثل حكمك وفيهم لحظة عند فقد الجد أو مركل لوايوة فلمات واسقط بعض النسخ نخبة دراوة واسقط بين الإخوة بالأجداد حكم بعدم ظاهر بعض النسخ نخبة دراوة واسقط ردواي بين الإخوة ولا له ويلشودة بالأجداد أو كرد حكما حال كونه حكما أو ياي حكم كاسوا بعلن عدل حكم كاسوا ظاهر الإرشادي هنون كيسوا عدي هواي ماشي مركو حنقول ما هذي هذا فالمركة مسائشة oo la abka wuxuu heli karaan waa markii hal ukhta joogda leeyahay hal ukhta bis markii joogto marka waxa jirta leeyahay زيد من هذا لفتكيس مسائل او وقتكيس او حكمي واسمي اسلسيو الزيديات الاربعه او مسائل معادات كميده على شيغا waxa marka magac waxa loo baxshay al-ashriya iyo al-20 iyo al-90 iyo muqtas زيد يعني ماشي ay ka ansaxday loo baxay مثلا waxa kamida jad ukhta shaqiiqa ukhta al-aba jad أختها كان يعني أخت الشقيقة مثل كيس كيرتاي مركا وحسابتي كدرس أو تجد أخت الشقيقة يا أخ الأب مركا أوه هذا الله حسابيه هذا الله حسابي لهين حاولوا اللي كانوا أنت اللي يراهدوا أو لبس لما انتقى تحبط سيلها مركا الأب كان يرت مركا يرت حسابتها لو قدرت حسابتها لو قبت شيء حوالي مركا الرؤوس لحسابها إلى كل مقاسمة في عن وقتها أو مثل كيس مجارسان لكن ومقاسمة أي نغيه مرك مقاسمة دي مدح على قتيرها وعشان مدح أسوق لبعه يأخر لبعه الأب كان لبعه يضع هلا شنوة حوالها عشان لا قيبها هذا الأب كان يجوج لي حوالها سد عن تلا قيبه لبعه قيبه قادرة موقتها أخذ الأب كان حسابته القدرة شنة عن تلا قيبيه لبسها ملقسيها لبسها مرك لقسيه سد هذا أيضو سد سهري موقتها سد هذا النسوان كان بسكت أيضو نسال كان بسكرته هذا أخ هلا إذا قاعد له وقته هذا إذا نسال كان بسكرته لبا يبرج له ثم كسر يجلاية لبا وحاله يقولوا فيها عشان طبعا المسألة تجي طبعا مركب مسألة تقطع به أو أفر لقسيها نصف المال على سيا وعشان حبذا صهرت ساسوا مركب مسألة من كان صحضي طبعا كاسات مركب ساب حلو بحشي العشرية ساسوا 20 وصلوا كله مسألة دي يعني لبعتنا كان صحي يعني واجد أخت الشقاي أختين الأبن مسألة مركي كجبته طلباتنا كان صحيح وهلو مجرد مركا أفرتاز مركا حالة 90 يعني معناه كان سياسة ومعناه حواي ويعني يجد يختص غاء أخوين الأب يخت الأبة مسألة اللي كان صحيح جديد 8 ده كان صحيح سياسة نتجه 90 لو بحش المهم مركا المهم ده واحد هل كاس حالة بس أي لأبكى وحورها يعني هذا وصلى على محمد وآله وسلم